gaadiidleyda bajaajta u badan ayaa cabashooyin xoogan ka muujiyey shidaal la'aanta baahsan ee ka jirta gudaha magaalada Jigjiga iyo habeen iyo dharaarba safaf dhaadheer ugu jira siday shidaal ugu shuban lahaayeen saacada dheer iyo cambaarayn xoogan dusha uga riday xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladda deegaanka Soomaalida iyo milkiilayaasha kaalmaha shidaalka oo ay sheegeen inay arrintani iska indhiyo dhagaba tireen oo ay kaalaysi ama taraysi inay maalinba kaalin ay shaqayso hay sababeen dhibaatadana ay noqotay mid soo noqnoqotay taasna ay noqotay nidaam xumada jirta kaalmaha shidaalka adeeg bixinta sameeya hadda saacada Afrikada bari waa abaar 9 habeenimo ama 3 saac oo habeenimo halkani aan ku sugannahay waajidka cusub ee Ducaale waxay bajaajada safaf dhaadheer ugu jiraan sidee ay kaalmaha shidaalka ee nooca shidaal uga shuban lahaayeen waana kaalinta kaliya ee caawa shaqaynaysa gabi ahaanba magaalada Jigjiga waa kuwan qaar kamid ah bajaajleyda iyo dadka shacabka ee gaadiidka yaryar isticmaalo oo ka hadlaya dhibaatadani baayada shidaal magaalada shidaal laan baa ugu jirto ilaa duurkii baan taagannahay wadooyinkiina inta badan ay noo xidhmeen shidaal saan ku helnaa ay adkaatay waqtiga aan aroortii soo baxno ilaa casarkii laga yaabo inaan shaqaysanno oo aan kuyu ku jirno shiidaalkiina uu litirkii $100 marayo uu inta kale Itoobiyaada kalena uu ka jaban yahay markii hore litirkii $5 isbixis waa laakiin hadda isagoo $100 noqday aanu neelin ilaa duurkiina aanu taagnay dhibaatadana waa dhibaato khaas ah magaalada Jigjiga ma aha deegaanka laba qabo imika baabili haddaad gaadho herar haddaad gaadho dirdhaba haddaad tagto dhammaan shidaalku kaalin kastaba bajaaj way galaysaa oo 8 litir qaataba oo loo buuxinayo dhaqaaqaysaa kaalmahan magaalada Jigjiga waxaan maanay kaalanta nook baa la yidhi bajaaj u shaqaysa kaalmaha kale meel kale ma la shaqeeyantay kulli xalay toolaba waxaan ka baxay labadii habeenimo ayaan xalay ka baxay intii xalay aan shubtayna maanta ku shaqaysanayay kulli caawna waxaan u malayn haday labada ka sii dambayninba inay 3 iyo 4 gaari doonto hadii uu la gaadhaba oo shidaalku inuu go'aan cabsi ka qabo kulli sababuhu way farabadan hadii aynu eegno dhinaca wadan ahaan waad socon kartaa laakiinse waxay u eg tahay in ay kaalmuhu iyagu dhibaatada qayb ku leeyihiin labadii dhibaato isku jira oo marka la eego xaaladdu wadanku ku jiro sababi karta laakiinse waxa dheeri ah waxaad arkaysaa kaalmo iyagii uu ugu jiro ama fiiladii lagu jiro hal mar telefoon ku soo dhacayo lagu leeyahay waa la xidhay waanu joogay anigu kaalmo saasoo kala ah oo doranaysa warniyo dhibku xaguu ka socdaa maxaa jira soodiga hadda shubayay shidaalkii uu ku jiray ma noo shubtaana iyo ma walayla soo hadlay caadiba ku oranayaba telefoonka la soo hadlay ma maxaa kula hadli muxuu yahay balaya kula hadashay ma walayla soo hadlay aniga ninkii la xidbiigu yiri waan arkay anigu arintani miyana sabab karin dhibaato ka weyn tan oo markaasi in xagga amniga way sababi kartaa maanta ma anagu yoomkii shalay tooliyo kii maanta waxaan ka qaadaynaa dadkiina waxa ma haystaan bayagoo sakaraadan anaguna waa kii aad qaadaba waxa weeyaan madaxa la isku jira hadda laban ku kala qabtay halkaa ninuu soo qaaday qumada uu ka soo qaaday TCC-da halkii tiitayda ayaan ugu tagay wuxuu yiri $100 keen kiina wuxuu yiri weligiiba liiguma keenin aad maanta lagugu keeniyo si baan ku ridee waa uga qaadnay hadda socodkaygan baaritaan wakaalada warbaahinta dowladda deegaanka sameysay ayaa waxay nahayd dhibaatadani dhibaato soo noqnoqotay balan fiirino safafka ay gaadiidkani ugu jiraan halka ugu dambeysay ee bajaajta ugu dambaysa ku sugan tahay oo ah wareegga dambe ee xafiiska microfinance ama hay'adda shirkadaha lacagaha yaryar oo gadaal ka xigta kaalinta nooka wareegna ay soo galayaan safafkaasi Cabdilaahi Ibrahim Cabdi waa wadaha bajaajta fiilada ugu dambaysa safka ugu dambeeya ku jira oo sheegay inuu ilaa iyo habeen hore saf ugu jiray kaalintan dhibaatadana bajaajleyda haysatana sheegay inay saameyn ku yeelatay shacabka amniga wadooyinka iyo qoyskii oo ay u shaqayn jireen oo laftarkiisa qoys burbur u horseedi gaadhay kadib markii ilaa labadii habeenimo oo ku dheelmaday gurigiisa isagoon helin shidaal caawana safka uu ugu dambeeyo rajana ka qaba inuu helo shidaal darka shidaalkana uusan u muuqan yaalba aad ka soo tagtay oo biilad ka ridi jirtay saacado badan waa taagan tahay waana taagnaan doontaa saameyn inta lag bay qoys ahaan ku keenaysaa dhibaato xalay tolan iyo islaantu way isku dhici gaadhnayba xageed ku maqnayd waa sababaysaa waa xaafadii dhibaato qoyska xataa imanaysa markaan iyo dawladdu haddii ay wax ka qaban karto kolley culaysyada faraha badan jiro waan ognahay balse haddii ay wax ka qaban karto iyaga wax ka bedeli karto xafiiskii quseeyey inuu wax ka qabto wixii ay kabi karaan ay samayn karaan shidaalada dheeriga qaarkood baa odhanaya waa intii dawladda soo hadhay annagii dawladdii afkiis ku kaya gelinaya annaguna dawladdii cadaawadii aan u qaadno meeyad maxay wax u dhiganaysaa baasiinba ma lehe
baabuurba ma laha naaftadeeda may dhurata marka iyagu qudhadkoodu waxbay ku darayaan xafiisyadu ay qusayso xafiiska gaadiidka ganacsiga weeyaan hadda koorna aanu waan arkay warqad ay ku dhajiyeen oo aan la hadlay oo ninkii markuu yimidna uu aayar aan ku nidhi qiimahan aad dhajiseen iyo kan iyo suu kala yahay waa kana uu na weydiinayaa aayar gudahan bay isla galeen waxay sidaadan ma qana aayar u dhaqaaqay kaalintii baa igu tiri bal waa cidda maalin dambe ku shubta waa kaalinta total ma habeenkii iyadoo la dhaaminay darkiisa dhibaatooyinka jira meel loo dhaamin aanad garanaynin inta badan kaalmaha shidaalka caawa gebi ahaantooda hambu ay wada xidhan yihiin marka laga reebo kaalinta shidaalka noog halkan waa kaalmaha shidaalka niil shell oo gebi ahaanba albaabadu u xidhan yihiin iyo kaalmo kale waxayna u muuqdaan kuwo ay hortaagan yihiin booyada shidaal oo aan la garan karin waxa ay sugayaan waa kaalinta Olivia ama Shell-tii hore sidaan u naqaano oo waqti xaadirkan ku sugannahay wax adeeg oo bixinaysina ma jirto saacadu waa 9kii habeenimo buuqa iyo sawaxanka ka dhacay kaalinta noogna waa la socoteen sababaha ay u xidhan tahayna waxa la igu sheegay waardiga kaliya oo meesha ku sugan in uunan wax shidaali jirin oo reserve ay ku jirto reserve oo macnaheedu tahay shidaalka kaydka kaliya ta ayaa yaala ee loogu talagalay dawladdu inay adeegyada ku bixiso degdeg ah sababaha ay u xidhan tahay mas'uuliyiintii ay khusaysay la weydiin lahaana waqti xaadirkan kuma sugno waa kaalinta in Cali Mahdi oo markaas waqti xaadirkan wax adeeg aan ka bixinayn dhinaca shidaalka bensiinka laakiin bixinaysa adeega naaftada oo kaliya ma garan karno sababta ilaa hadda aynan wax adeeg oo bensiin ah oo bixin laadahay ay u xidhan tahay mas'uuliyiinta aan weydiin lahayn waqti xaadirkan goobta kuma sugno shaqaale kaliya ayaa jooga waxaana la ii sheegayaa waqti xaadirkan inaynan wax shidaal ah oo bensiin ah ama ku jirin waraysina aysan diyaar u ahayn abbaaro 8 subaxnimo ayaa waxaan aroortii u kalahnay inaan iyadana balsafafkii halka ay marayaan aan indhaha soo saarno qaar ka mid ah hay'adaha amniga wadooyinka ee taraafikada ayaa iyaguna dareenkooda ku cabiray dhibaatada iyo ka dhankooda ka haysata iyo waxa ay fariinay tabinayaan tan koowaad kaalmo deegaanka macnaha magaalada Jigjiga waxa ku yaala kaalmo fara badan ayada sidaas haddana ma shaqeynayaan hal kaalmo magaalada Jigjiga inta lag oo shaqeynaysa dad baa shalay soo shaqo tageen macnaha ilaa hadda taagantay taasna waxaan dhihi lahaa macnaha dawladda ka hortagto oo kaalmo shidaalkan la dhoofinayo meel kale la geynayo magaalada inta lagu soo magaalada marka hore ayaa ooman magaalada hal la waraabiyo ka bacdi way macnaha la dhigi karaa meel kale hal la geeyo Jigjiga iyadoo macnaha iyadoo iska sii jaam oo macnaha gaadiidkeed ka farabadan yahay haddana in la dhaho halkan la adeegto taariikhda waxay mataa 13 ilaa haddana ay juuziya gurayo oo lama joojin bajaajti xafiis gaadiid ganacsiga waxay dhawaan joojinay kaalmaha mid kale waxa u xirsan xafiis gaadiid ganacsiga waxaan dhihi lahaa xafiis gaadiid ganacsiga ha amraano ha xukumaano ha kantaraalano xawiyaan ha sino xaga bedelaan kaalmaan wax ka qabtaan noomay suuro gelin markaasi waqti xaadirkan mas'uulkii alla ballansanayn ee shirkadda noog inaan wareys la yeelano oo xalayna la ballamay waxa dhacday in markaasi waqti xaadirkan uusan xafiiska ku sugnayn arrintaasina saameynteeda ayay leedahay isku soo wada duubo dhibaatadan ayaa waxay tahay mid 5 sano ee u dambeysay isbedelka ka hor 2 sano ilaa iyo 3 sano ee u dambeysay isbedelku intuu dhacay deegaanka mid soo noqnoqota warbixino badan laga sameeyay halka ilaa hadda aan la heli lahayn aan la garanayn sababaha ay u jiraan iyadoo deegaanka la sheegayo inuu shidaalka ugu badan yimaado من إنه تجرو جبتها ماديا وكيف مهون ليلة بسيج مهون من أنت فترة بدون تيكس شنتي شو إحنا ما شغله صدر يلا إلا هذا حلقة جالسين كبحية نوك أي حالة أديك سينة سجبية هامبا مقالة ذني تشجع جواريدا أما جديد خلاه يقارن بتشاشتا وباهي وين أوقف الشدال كبازينك وحلقوا شو بيجي اللتر كي صدام بير وحاسده كلا يكون كهولن أو شقده دي ودوينك kala xigaya dhinaca traafikada oo markaas ay hawlo aad u muhiim ah ka haya kalena horaya cali barqad telefishinka caalamiga ee SRTV Jigjiga